وانتك حوق يحيلد aan ku keenay marka qaarkood been ku tuuriya ama horaan xataa la joogan waa u socdaa halka igala socda dad badan ay isugaayeen ninka odag ah muu tagaya war maxaa ka safaarada lagu war airport ku weena amore waxaan ka baqayaa gabadhiiba inaan ka soo dhex qaban weyno ana yaabay soo ilburkin u weyn yahay dadka war waxa diyaaradii taayiradii waa u baxaya ilaahay waxaan kaaga barinay caga dhigo si nabada ha war ubax soo iga dhacay ubax ma idibni Shiina Culey oo kamid ah shakhsiyaadka ugu caansan barta social media ee loo yaqaan YouTube-ka ayaa waxa uu si weyn u soo dhaweeyay gabadhii ay kala tageen xidiga ku caanbaxay reaction bixinta iyo waliba falcelinta heesaha CK xaaskiisii hore ee Manaal ayay CK kala tageen muddo yar ka hor inta aysan isku dhicin CK iyo Shiina Culey iyo CK ayaa waxa waayadina dambe ka dhaxaysay xurguf dhanka social media ah ayagoo cambaareena isu marinayay isla markaasina hadalla iyo waliba waxyaabo isku sarbeebayay balse waxa uu Shiina Culey naf ka doonay ama uu doorbiday in uu soo dhaweeyo gabadhii CK ee kala tageen asagoo uga gol leh in CK halkaas uu ka weeraro isla markaasina uu CK ku tilmaamo qof xun balse kamuusan hadlin arrintaasi laakiin waxa uu soo dhaweyn weyn u sameeyay Manaal oo ku soo booqatay dalka Jarmalka ayadana uu sameeyay soo dhaweyn cajiib ah oo aad loola dhacay asaga iyo waliba saaxiibkii Amore Shiina Culey ayaa uga hortagay gagada diyaaradaha ay ka soo degaysay Manaal kadibna ku soo dhaweeyay dalka Jarmalka asagoo meelo kala duwan geeyay isla markaasina u furay YouTube channel oo muuqaalkii ugu horeysay ay soo dhigtay waxa uu sheegay in ay doonayso Manaal in ay hadda kadib ka xamaalato channelkaas isla markaasina ay tahay dhalinyarada Soomaaliyeed in mataqaana loogu kala kiciyo gabadhaasi balse tan ayaa u muuqanaysa mid dandaansi ah oo waliba uu boodadka qoryeysanayo Shiina Culey ayaa ilaahay naguma diree ciddii uu la dagaalamo cid uusan ka harin isla markaasina buuraha la kora haddaba arrintani ayuu CK weli ka soo hadlin balse ana markii la fiiriyo waray u sheegay in arrin ku saabsan reerkiisa iyo waliba kala taga xaaskiisa uu ka soo hadli doonin sida dhaqanka Soomaaliyeed iyo waliba diinteena suuban ay qabto waxa uu yiri haddii shalay sharaf aan isku qabnay maantana sharaf ayaan ku kala tagnay oo anigu ka hadli maayo arrinta gabadhaasi arrintani ayaa waxa dad badan ay ku tilmaameen in ay tahay arrin waxooshnimo ah Shiina Culeyna ay u geysay doqonnimo waa huba inay idin xiise gelin doonaan Manaal haddii aanu si gaar ah u bartay si gaar ah u aqaanaa wax xaraabo cagale cabaarka ala socoto ku daalimaysid waa ku sheekaynaysaa laxanka nooca jeceshaha lagu saaraa maxaa ku yiraahdayay waa laga qosilnaa stress free agteeda ma yaalo maxaa ku yiraahdayay kaale iska arag marka wax badan ay idin haysaa waana hubaa in channelkeedu uu idin xiise gelin doono Soomaalidu waxay ku mahmaahay jirtay waa la kala leexshaa liin iyo caano meel ya libax soo galay la joogi meesee ya marka Manaal baa timi dad badan laga yaabaa inay naxaan dadka waxaan leenahay waa sax anaa in kamida martida waa ka dhaxlaa mar hadii qoftaas meesha timi hanaanka iyo heybada ilaahay iyo hadalka isugu daray waa hubaa wadnaha fartu ku haysaan laakiin habaqinino qof walba risaaqadiisu cunaa kullu waxay ila tahay haba yaraatay wuxuu meesho wuxuu ka guri jirnay waa iska imanayaan marka Manaal wata hal soo dhaweeyo hal sharfo ciidamada hal lagu tuuro ciidamada masarka hal lagu tuuro Manaal YouTube maxaa ka rajeynaysaa dadkaas maqaaxida Shiina Culey ku xiran ee hadda ku daawanaya maxaa ka rajeynaysaa dadkaas ummadda Soomaaliyeed dan waxa ka filanaya ama aan ka rajeynayaa inay soo dhaweeyaan anigana madaxii isaariyeen dhamaantooda halkii qof oo ii imaado ama subscribe ii saara wixii iga mid yahay walaalkayga camal oo soo dhaweeyay taas anigana waa ka qaba aada u maadsantahay Amore maxay kula tahay Manaal waa timi waxa weeye adiga laftigaa wada maqaaxidaadii waxay u maleynayaa burburi mayso sida tayada laakiin xoogaa maartay yaa waa hoos u dhac jiraya horta waxa weeye mataqaana Shiina horta idii sheego maqaaxideeda markii la furayay qofkii furo buu ahaa maqaaxidu asiga furo way barakoodaan waxa weeye maartay waa dad qaar waxa weeye marka wax ku furaan waxa weeye hor socod maliido maartay meesha istaagaysa laakiin maqaaxida Shiina u furo waxa waa maqaaxi hor u soconaysa
waxa weeye manaalna waxa weeye waa gabar Soomaaliyeed oo loo baahnay waxaan is dhihi karaa maaragtay waxa weeye gabdhaha inay YouTube maaragtay waxa weeye noogu soo bataan maaragtay aad bay maaragtay noo anfacaysaa waxa weeye gabadhan walaashan waxa leedahay ku soo dhawow 100% waxa weeye YouTube-ku waxa weeye waa maqaaxi weyn ma garatay cidna maaragtay waxa weeye wax anagu irsaaqadu Ilaahay noo qoray waxa weeye isku xirna